السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لها الصوماليات أدباندي سلامية ومركلة إيه برنامج كيني لحرب وحمانت برنامج كإنه وود ديار ولكن محمد إنجنير محمد موسى عثمان محمد سودو ولاله waa dhowahay waa aad baa u mahadsan tahay aamina qorane waxa way magacaygu waa maxamed muuse cismaan waxaan joogaa Soomaaliya waxaan joogaa gaar ahaan waxaan kasii joogaa magaalada Boosaaso ما شاء الله محمد ولاله إيه محن كده هذايا ولا لها كلام hore waxaanu ognahay maxamed horta waa founder ka tirsan shirkadda Mombasa sooriyana tahay idinka halmaamin waa nin maxaan ku dhahay founder ah maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay maxamed inaad barnaamijka igala qayb qaadanaysid maanta maxamed oo hore waxaan wada ognahay oon horena uga soo hadalnay aniga gudoomiye Cabdi Cali Sow shanta tiir ee shirkadda Mombasa ku dhisan tahay shanta tiir oo maxaan ku yiraahdaayay ay shantiiba saddex afar ka mid ihi ay dhamaystirmeen marka habeenkii u dambeysay ee 10 January Qaashim Faarax wuxuu inoo sheegay laba tiir oo aad u muhiim ah oo aynu wada sugaynay inay dhamaystirmeen kuwaas oo kala ah domainka iyo maxaan ku dhahdaaye data centerka marka walaalkay waxaan jeclaa inaad haddaba maxaan ku dhahdaaye aad kuwaas maxaan ku dhahdaaye noo falaqaysid oo in maxaan ku dhahdaaye ummadda aad u soo bandhigtid okay maxamed waxa kaloo aad u jeclahay inaad iyadana aad noogu dul istaagtid waxa ay tahay ICANN oo ay shirkadda Mombasa noo sheegtay inay domainkeedii ICANN ay maxaan ku yiraahdaaye ay u ogolaatay bal arrimahaas maadaama engineer IT oo xog daloolaa tahay noo sharax insha Allah waa maxay ICANN walahi aad baa u mahadsan tahay insha Allah waxa way waxaan galeynaa waa maxamed muuse cismaan waxaan ka mid ahay founderska sidoo kale waxaan ku noolahay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Boosaaso soo dhawaado maasha Allah maxamed waxaan kugu soo dhaweynayaa walaalo barnaamijkeena dhaxal reeb mar kale maxamed waxaad insha Allah aad inoo maanta maadaama aad injineer aqoon badan u leeyahay tahay maxaan ku dhahdaa qaybtan IT-ga walaalaha Soomaaliyeedna aad ay ugu baahan yihiin inay fahmaan waxaan ay tahay maxaan ku yiraahdaaye farxadii habeenkii dhaweyd uu nala wadaagay Qaashim Faarax oo inoo sheegay in shantii tiir ee Mombasa ay ku dhisnayd in hore uga ka soo hadalay barnaamijkeena dhaxal reeb gudoomiye Cabdi Cali Sow oo kala ahaa ecosystemka shanta tiir waxay kala ahaayeen ecosystemka in qofku ecosystem inay shirkadu haysato inay haysato maxaan ku yiraahday oo verify data center oo domain iyo payment bank marka habeenkii dhaweyd wuxuu inoo sheegay inay noo dhamaystirmeen laba tiir oo kala ah in datadii iyo domainkii marka walaal bal labadaa noo kala sharax insha Allah kuna soco wala aad baa u mahadsan tahay waa dhowahay insha Allah waa barnaamijkan oo ku dhowahay dhaxal reeb marka insha Allah waxa way waxaan sharaxaad ka bixinaynaa cloud computing iyo waan waxa way sharaxaad sidii ma taqaanaa zero kooban oo qofku fahmi karo insha Allah baa waxa way u sharaxaynaa cloud computing marka cloud computing ku waa waxa way waa xog maartay waxa weeye waa daatada waxa la saaray internet marka waxa ka horeeya in horta marka hore la helo waxa la yiraahdo data center ku waa maxay waa meeshii lagu keydinayay xogta macaamiisha kambaniyada organizationada businesska meeshii xogta loogu keydin lahaa weeye data center ku marka waa kambaniyadu meel buu dhistay wuxuu dhigtay servers ku shaqeynaya network equipment qalabka networka sidoo kale qalabka loo baahan yahay waxa kamid ah storing qalabka wax lagu keydiyo sidoo kale qalabka maamulaya daatada aadka u weyn managing the large amount of the data daatada aadka u weyn in mataqaanaa xogta maamulaysa oo maaragtay qalabkaas in mataqaanaa la sad upgareeyo oo la xirxiro oo meel lagu rakibo oo la diyaariyo kambaniga marka daatada marka la diyaariyo qalabka la diyaariyo wuxuu kambanigu
maaragtay laga rabaa inuu dhaatadii macaamiisha ilaaliyo xogtoodii iyo dhaatadoodii backup ka qaado in xogta lasoo access garayn karo oo xogta lasoo gaari karo qofku markuu xogtiisa u baahdo inuu si fudud ku heli karo inuu sidoo kale maaragtay wax walba oo u baahnaa qofka maaragtay macmiilka ah ama organizationka ah dhaatadiisii in waxa weeye mar walba sida mataqaanaa anytime anywhere meel walba uu joogo hadduu computer kasoo galo hadduu mobile kasoo galo inuu xogtiisii dhaatadiisii helo marka waa meel la dhigay servers la dhigay fara badan data xajmi aad u weyna qaadi kara maaragtay sidoo kale waa in la helaa data center blade waa aad bay muhiim u tahay baa la yidhi roolka in la helo support digital mataqaanaa meel support garaynaysa oo maxay qalabkii baa laga rabaa serveraa laga rabaa waxaa laga rabaa qalab dhammaystiran oo waxa weeye networkaasi uu ku shaqaynayo qalabka marka waa sheegaynaa waxaa la rabaa componentska la rabo data centerka laga rabo waa servers in la helo serveradii waa maxay waa wax physical hardware or virtual machines that process daatada meesha lagu kaydin lahaa meesha la helo daatada lagu kaydin lahaa xogta lagu kaydin lahaa sidoo kale in la helo network equipment qalabkii lagu kaydin lahaa mataqaanaa network ku shaqayn lahaa oo sida routeradii switchkii networkii mataqaanaa communicationka lagu samayn lahaa oo serverkaas lagula xiriiri lahaa dadka banaanka kasoo access garaynaya si ay usoo gaaraanin routerka maaragtay serverada iyo data centerka ay usoo gaareen qalabkaasaa ka qayb qaadanaya waxaa kaloo ka mid ah storage system meesha xogta lagu kaydinayo systemka daatada lagu kaydinayo oo manage garaynaya daatada sidoo kale halkaasaa marka waa maxay daatada waxay noqonaysaa hard disk drives bay noqonaysaa ama waxay noqon kartaa solid state drives bay noqonaysaa ama new technology loogu talagalay in markaa daatada lagu kaydiyo sidaas waxaa ka mid ah network lagu xiraya network attached storage halkaas xogtaas lagu kaydinayaa serverka xogtaas ay ku jirtaa marka serveradu company oo kale data centerka markuu samaysanayo wuxuu ka samaystaa meelo kala duwan Mareykanku ka samaystay China ka samaysanaya Australia ka samaysanaya Europe ka samaysanaya meelo kala duwan waxa looga samaysanayaa macmiilka ama company-ga ama organization-ka in maaragtay ama bangiyada daatadooda xogtooda in mataqaanaa haddii disaster dhaco ama centerkaasi uu gubto in mataqaanaa daatada laga heli karo mataqaanaa xarumaha kale ama data centerska kale ninka Mareykanku gubto in laga helo kan China kan Europe kan Australia xogtaasi marka qofka mar walba xogtiisa waa safe meelo kale server kale lagu shubaya haddii serverada mid kamid ah uu shaqada gabo ama uu istaago automatic waxa weeye mid kale loo wareejinayaa xogtiisa marna waayi maayo xogtiisa mar uu waayayo ma jirto meelo kala duwan bay ku jirtaa backup baa laga qaadayaa waxa weeye different locations isbitaala different countries isbitaala kala duwan marka sidoo kale waxa weeye waxayna ku xiga waxa la rabaa data centerka waxa laga rabaa power infrastructure in loo diyaariyo oo korontadii iyo korontada ku habboon in la siiyo wax la yiraahdo UPS oo haynaya systemku inuu demin sidoo kale inuu mataqaanaa daarnaado xilli walba la soo access garayn karo in xilli walba la soo gaari karo korontada markay ka tagtana waxaa sii haynaya UPS taas baa sii haynaya inta korontada la kala bedelayo haddii motor la sii la daarayana isaga xogta sii haynaya sidoo kale wuxuu u baahan yahay waxa la yiraahdo cooling systemku waa maxay meesha waxaa ku xiran qalab fara badan baa ku xiran qalabkaas korontay ku shaqeeyaan waxay soo generate gareynayaan heat kulayl bay soo generate gareynayaan waxaa loo baahan yahay in lagu xiro air condition ama qaboojiyaal baa lagu xirayaa systemka qaboojinaya temperatureka markaa waxa weeye daatada meesha maraysa iyo equipmentska meesha yaala saysan u noqonin overheating hadduu systemku kulaado ma shaqaynayo oo mataqaanaa daatadii ma soo qaadayo lama gaari karo maxaa keenaya qalabkii dhammaa ama serverkii dhammaa qalabka hadduu kulaado wax shaqaa ma qabanayo kadib hadduu kulayl dareemo waxa weeye hawlgab buu noqonayaa culeys buu noqonayaa waxaa keenaya overheatingkaasa ka badanaya hadhowna waa shaqadu joojinaya marka waxaa lagu xiraya waxa loo yaqaano cooling system waa la qaboojinayaa si shaqadaas functionalitygiisa iyo shaqadiisa iyo qaabka u shaqaynayo siday mataqaanaa ay hore ugu socoto sidoo kale waxaa loo samaynayaa physical security baa loo samaynayaa oo surveillance sida kaamerooyin iyo waxbaa lagu xirayaa si loo ilaaliyo
oo loola socdo loo kontrolo loo jeegareeyo mataqaana waxaan waa qalab wax walbaa dhici kara shoor baa dhici kara system baa istaagi kara waxaas kamarooyin baa ku xiran sidoo kale waxaa jira security personal protect against unauthorized micna qof joogaa jira meesha oo wixii mataqaana anugu wixii soo asgareynaya oo physical security-ga dhaatada iyo waxa xadayana qofku markaa de security-ga ilaalinayo oo jeegareynayo iyo waxa baa jira oo dhaatadaas ilaalinaya kamarooyinna waa ku xiran yihiin systemka la soconayo xaaladooda iyo qaabka ay u shaqeynayaan sidoo kale waxaa jira fire waxa dhici kara de dab baa kici kara marka in fire detection la heli karo wax fireka dabka lagu damiyo oo qalabkii fireka lagu daminayay in facility waxaas la helo sidoo kale in la helo environmental controlska system in lagu sameeyo monitoring la jeegareeyo sidoo kale deegaanka environment-ga inuusan wax factories ama saameyn ku yeelan oo sidoo kale huur baa dhici kara waxa dhici kara mataqaana dhas ama dabayl ama ciid sidoo kale seesan u saameyn waxaasoo dhan baa laga ilaalinayaa qalabkaas haddii qalabka ciidi taabato haddii dhas taabto haddii humidity uu dareemo waxaas qalabka cilad buu keenaya waa system koronto ku shaqeynaya waa fuulaanaya wuxuu rabaa wax cooling system qaboojiya sidoo kale waa daatada redundancy and high availability waa maxay waxa laga wadaa duplicate haddii serverka aad gashay daatadii maaragtay systemkii wax ka xumaadaanayn ama some parts ka mid ah uu si serverkaasi istaago waxa lagu gudbinayaa si automatic waxa lagu gudbinayaa another server kale lagu gudbinayaa serverkaas shaqadaada ku qabanaya kasoo qaado kale hadda marka Google waxay weydiinayso Google ku oranaya mashquul weeye serverku ku oranaayo mataqaana xogtaas oo dhan waxa looga ilaaliyay mataqaana haddii jam jiro meel kale ku gudbinayo meelaha kale oo firaaqada wadamada kale ku dirayaa serverada kale oo Yurub yaallo ku dirayaa ama Mareykanku ku dirayaa adoo Soomaaliya jooga boosasa jooga userkaaga waxaa kaga jirtaa Jarmalka ama waxaa kaga jirtaa mataqaana Australia ama waxaa kaga jirtaa Mareykanka ama waxaa kaga jirtaa Jarmalka server halka yaalana xogtaadii waxa way ku jirtaa maalina meel kale ku jirtaa sidoo kale xogti waxa lagu maamulayaa waxa loo yaqaano remote management oo qaab remote ahaan ah xogti loola soconayo tools and technology for the remote monitoring waa qaabkaas waxa loola soconayaa si mataqaana loo monitoring gareynaya loo maamulaya data centerkii iyo infrastructure meesha sidoo kale allowing the administrators troubleshooting halka ku sameynayaan sidoo kale maintenance dayactir bay sameynayaan task from the distance marka shaqooyinkii marka halkaas lagu qabanaya wax walba cilada jira si remotely ah baa looga shaqeynaya waxa jira scalability waxa weeye maaragtay in maaragtay qofku maaragtay design concentration that allow the data center to scale capacity in qofku maaragtay xogtiisii oo systemku awood u leeyahay in qofku xogtiisa helo deegaan helo waxyaalaha uu baahan yahay haddii wax bedelanayo capacity hadduu weynaysanayo haddaa storage-ka weynaysanayso haddaa RAM-ka weynaysanayso waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay hadda intaa subscription samaysato ama aad weynaysato bay ku xiran tahay marka si aad xogtaada markaa u gaarto oo awood ugu yeelato systemka in aad markaa datadaadii aad gaarto marka energy efficiency waa strategy and technology to optimize energy usage and reduce the environmental impact in la yareeyo marka saameynta ama ku yeelanayso marka deegaanka data center operationka qalabka shaqeynaya waxa sidoo kale in la sameeyo cloud integration oo la isku daro some organization kala duwan in la isku daro oo la sameeyo wax loo yaqaano on-premise data center on-premise waxa weeye waa daato taala xarunta company-ga ama organization-ka dhexdiisa kadibna lagu xiro qayb kale oo waxay tahay cloud service oo saaran waxay saaran tahay cloud mataqaana service-ka saaran iyo qayb kale waxa la isku xirayaa waxay taala xarunta organization-ka dhexdiisa waxa jira laba la yiraahdo waxa la yiraahdaa on-premises waa daatada taala organization-ka dhexdiisa oo maartay data center-ka u yaala waa on-premise la yiraahdaa off-premises baa jira waa data meel kala taala another location meel kala taala baa waxa loo yiraahdaa off-premise sidoo kale labada deegaan baa marka la isku xiraya xogtaas mataqaana cloud-ka ah iyo xogta kale oo mataqaana organization-ka dhexdiisa taala kadibna hadda waxa la yaabaa datadaasi marka waa la isku match gareynaya labada data la isku darayaa waxa la iskaga dhigayaa hybrid oo bal abuuraya create hybrid waa maxay waa private iyo waxa la isku darayaa public private iyo public baa la isku daraya marka private iyo public la isku daro baa hybrid infrastructure la yiraahdaa
kadibna saasaa waxa weeye environmentiga ama labadii qaybood ay isugu darsamayaan oo u wada shaqaynayaan. data centerku marka wuxuu ka kooban yahay componentskaas ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay waa cableska xargihii networka ku shaqaynayay, wuxuu u baahan yahay sidoo kale IC-gii ama air conditionkii ama qaboojiyihii systemka qaboojin lahaa. sidoo kale wuxuu u baahan yahay waxa loo yaqaano UPS oo bateriyadii iyo qalabkii powerka bixin lahaa, wuxuu u baahan yahay generatorskii, wuxuu u baahan yahay storagekii, wuxuu u baahan yahay waxa la yidhaahdo serverskii, sidoo kale wuxuu u baahan yahay networkii iyo waxaasoo dhan buu u baahan yahay, storagekii qalabkii oo dhan buu u baahan yahay. qalabkaasoo marka ku shaqaynaya xogta marka saasaa lagu soo access garaynaya. waa intaasoo qalab isku xiran oo midka kale waxa weeye uu ku xiran yahay si xogta iyo daatada loo gaaro. marka sidoo kale marka waxaan soo sharaxnay data center. waa meeshii daatada lagu keedinayay. daatada halkeedii markii internetka la saaro baa waxaa loo yaqaanaa cloud computing. cloud computing waa maxay? cloud computing refers waa delivery of computing services over the internet. internetka ka soo access garaynaysaa. internetka baa ka soo access garaynaysaa adoo meel kale jooga baa internet ka soo access garaynaysaa. xogta ku jira marka storage-ka ku jirta halkaas iyo applicationada halka ku jira halkaas ka access garaynaysaa. sidoo kale waxaa jira on-premise company. kambaniyadu waxa waxay leeyihiin oo hadda soo sharaxnay on-premises waxa weeye organizationadu xogta ay mataqaana kambaniga ama organizationka dhexdiisa taala oo ku kaydsado waxa loo yaqaanaa on-premise. sidoo kale waxaa jira off-premises oo ah daatada mataqaana lagu kaydiyo meel kale lagu kaydiyo baa loo yaqaanaa off-premise. sidoo kale cloud mataqaana cloudku waa service online. waa serviceska waxa lagu bixiyaa online ahaan baa kusoo gelaysaa without internet kugu shaqayn maayo. haddaad internet haysan kugu shaqayn maayo. waa inaa marka internet si aad xogta u gaadho ama serverka u gaadho ama cloudka u gaadho in hesho internet. marka waa maxay wuxuu ku ogolaanayaa userska waxa loo ogolaanayaa resource-giisa on the demand isagoo xogtiisii daatadiisa baa loo ogolaanayaa without need for physical isagoo marka aan qalab u baahnayn. marka qalab muxuu kaaga baahan yahay? cloud computer kaama rabo, server kaama rabo, qalab kaama rabo. computerkaaga haddaa haysato xogtiisaasaa ku gaaraysa computerkaagii. computer ka weyn baa gelaysa, daatadaadii baa ku kaydsanaysaa. storage-ka waa mataqaanaa marka u baahato kor baa u qaadan kadhaa. haddii storage-ku kugu badan yahay dib baa usoo celin kadhaa oran kadhaa storage-ka iga yareeya. haddii raamku kaa yaraado raamka waa kordhisan kadhaa. hadduu raamku kugu badan yahay raamka waa iska yareyn kadhaa. hadba tabartaada iyo taagtaada ku xiran tahay iyo qiimaha marka aad gabato. sidoo kale marka wax physical ah oo adiga lagaga baahan yahay ama local server adiga lagaga baahan yahay ma jirto. sababtoo ah waxaas qarash waa laga ilaaliyay. qarash kugu bixi maayo, lacagta yartaaba la bixisa. wax walbana waxaa safe meel safe ay ku yaalaan. backup baa laga qaaday. daatada marka loo kala lumayso different location bay kala taalaa, different countries bay kala taalaa. xogtaasi marka saasay marka xogtaadu safe kugu tahay, meelo kala gaarana ay kugu taalaa. mar walba waa u baahato anytime anywhere aad joogto, network kastoo aad joogto, mobile baa ka geli kadhaa, computer baa ka geli kadhaa, device-kaas waxa weeye iPad baa ka geli kadhaa. wax walba mataqaanaa network ku shaqaynaya uu kugu shaqaynaya si xogtaadii aad u gaadho. kambaniyada marka bixiya cloud service providerska waxaa ka mid ah Amazon baa ka mid ah, waxaa ka mid ah Microsoft Azure baa ka mid ah, Google Cloud Platform baa ka mid ah, IBM Cloud baa ka mid ah, Oracle Cloud baa ka mid ah, Alibaba Cloud baa ka mid ah. kambaniyadaasi waa kambaniyada bixiya oo mataqaanaa service providerka cloud serviceska. kambaniyada bixiya oo ugu caansan badanaa Amazon baa ugu caansan. kambaniyadaas marka bixiya baa waxaa loo yaqaanaa cloud computer. marka kuwaasaa tusaalayaal inoo ah iyo kambanigeena Ombasi. sidoo kale characteristic buu leeyahay oo ah la yaqaano on demand service. userku wuxuu markaa xogtiisii wuxuu ku access garaynayaa marka uu baahdo resources, marka uu baahdo service need, marka uu baahdo isagoo marka u baahanayn mataqaanaa human interaction in qof bini aadan waco, in qof bini aadan la xiriiro. halkaas xogtaada ka gelaysaa adoo aan qofna la xiriir, qof bini aadan aan xogtaada u marin. halkaas waxa weeye dalaq oranaysaa userkaaga iyo passwordkaaga xogtaadii baa haysataa ku geliya ku access garayn lahayd. kadibna cid mataqaanaa bini aadan oo caawimaad uga baahan tahay ama kaaga xiran tahay ma jirto. sidoo kale waxaa jira waxa la yidhaha broad network access. waa service and access waxaad ka access garaynaysaa mar walba uma baahnid
networkaas ka access garanaysaa adoo device-ka isticmaalaya device-ku waa mobilka waa computerka waxyaalaha inta ku shaqeynaya dhan baa waxa loo yaqaanaa deviceska sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaano resource pooling resource pooling waa maxay waa computer resource are pooling together waxa weeye server multiple users baa ka samaysan kadhaa multiple user fara badan baa ka samaysan kadhaa oo meel kale xogta laga soo galo oo mataqaanaa shaqaalaha badan oo kugu shaqeeya baa nin walba user nin walba ama gobol ama another magaalo kale ama wadan kale uu ka soo gelayaa kadibna halkaas userkiisa ku soo gelayaa xogtiisa ka soo access gareynaya isagoo markaa resource-gii ka faa'iideysanaya scalability-guna waa maxay inuu systemku markaa awood u leeyahay capacity u leeyahay performance-giisuna uu hayo sidoo kale in xogta rapidly resource can be scaled up xogti waxaa samayn kadhaa waa weynaysan kadhaa capacity-ga haddaa u baahan tahay inaad storage-ka weynaysato waa weynaysanaysaa haddaa u baahan tahay inaad iska yarayso uu kugu weyn yahayna waa iska yaraysanaysaa oo waa maxay waxay ku xiran tahay to meet changing the demand haddaa intaa u baahan tahay waa ku bedelanaysaa haddaa rabto waa kordhisanaysaa haddaa rabtona waa yaraysanaysaa sidoo kale waxaa jira waxaa loo yaqaano niche service waa maxay waxaa laga intii aad gadatay unbaa waxa weeye lacagteeda lagugu soo dalaacaya waa maxay waa cloud service use intaad ka isticmaashay baa lagu cabirayaa monitoring baa lagugu samaynayaa kadibna waxaa lagugu soo dalacayaa intii aad ka isticmaashay actual consumption intii aad ka isticmaashay baa biilkeeda iyo lacagteeda lagugu soo dalacayaa oo waxaa lagu oranayaa intaasaa lacag lagaa rabaa kadibna lacagtaasaa iska bixinaysaa baase kugu shaqaynaya waxaa jira waxa la yidhaha modelskaas AIskaas iyo BAS iyo SAS sidoo kale waxaa jira afartaasna way jiraan model oo loo yaqaano private cloud iyo community cloud iyo public cloud iyo hybrid cloud marka kuwaadana waa sharaxaynaa public cloud kula waa maxay waa wax dadka dhan ka dhexeeya service are provided over the public network weeye qof walbaa soo access garan kara meel walbaa laga soo geli karaa xogtaasi waxa weeye waa xog meel walba dadka ka dhexeeya qof walbaaba user waa maxay uu soo access garan karo sidoo kale waxaa kamid ah meelaha la soo access garan karo sidoo kale waa cost effective qiimo uu leeyahay businesska iyo waxaas loo isticmaalaa shakhsiyaad baa isticmaali kara sidoo kale scalability waa awoodda ama performance-ga uu company-gu u leeyahay inuu daatada tan iyo xogta tan iyo qofku soo access gareeyo inuu mataqaanaa performance-giisu yahay flexibility-na waa maxay in qofkii xogtii booqan karo qofkii heli karo xil walba mataqaanaa daatadii la heli karo sidoo kale public cloud providers waxaa bixiya Amazon Azure-kaasi waa Microsoft-gaas kaasna waa Google kuwaasaa marka waxay bixiyaan accessible to the general public ay bixiyaan in loogu talagalay inay soo access gareeyo sidoo kale waxaa jira private baa jira mid dadku gaar u samaystaan oo private ah oo company ama organization u gaara oo gaar loo isticmaalo infrastructure is dedicated to a single organization by isticmaalaya may be located on the on premises or mase off premise on premise waa maxay waa in company-ga dhexdiisa xogtii daatadii serverkii wixii u taalaa oo halka kaligaas company-ga kaliya gelaya cid kale la share gareynayso cid kale arki mayso kaligiisa xogtiisa iyo daatadiisa iyo xiisa arkaya off promisesna waa in daatadii mataqaanaa another location taala oo la access gareynaya xogtii la gaaray sidoo kale waxaa jira private cloud environment are designed to meet specific security waa loo sameeyaa performance-giisa mataqaanaa la ilaaliyo oo maadaama uu yahay private in xogtiisa maartay isagana security-giisa wixiisa la ilaaliyo sidoo kale in la control oo kor loo qaado oo control customization verifies requirement significantly upon investment in la maalgeliyo oo maartay enhancement lagu sameeyo enhancement waa maxay update lagu sameeyo kor loo qaado oo maartay si security-giisa uu high maro sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaano hybrid cloud waa marka la isku daro waxa loo yaqaano public waa combining marka la isku daro public iyo private marka la isku daro environment allow for the flexibility and data sharing between two marka macnaheedu la isku daro public iyo private waa waxa loo yaqaanaa hybrid cloud oo marka xogtii marka loo ogolaanayo in flexibility-geeda datadaas in la share gareyn karo la wadaagi karo xogtaas mataqaanaa in noqoto markaas hybrid noqonaysa sidoo kale organizational waa isticmaalaya benefit of the both public na waa u isticmaalayaan dadna waa u isticmaalayaan sidoo kale waxaa weeye ensuring optimal resource allocation sidoo kale waxaa loo hubinayaa meesha marka xogta marka locationka meesha ay taalo sidoo kale hybrid cloud development waxaa loo ogolaanayaa enabling workload
portability and seamless integrated between different environments meelo kala duwan baa markaa xogtaas laga soo access garaynaya laga soo gelaya workload lagu sameynaya la raadinaya xogtaas marka hybrid cloud kuna waa maxay waa marka la isku daro public iyo private community cloud baa jira community cloud kuna waa maxay isagu waa infrastructure loogu talagalay among the specific community baa loogu talagalay oo amase waxaa loogu talagalay organizations mataqaanaa xogta ku shaqeynsanaya sidoo kale waxaa loogu talagalay government ama agents ama waxaa loogu talagalay educational institution ama goobo waxbarasho ama xarumaha dawladda ama agenciyada ama meelaha lagu sameeyo research organizationka sameeya inay maaragtay isticmaalaan waxaa loo yaqaano community cloud inay isticmaalaan community cloud provides cost effective solution while the addressing specific requirement waa la siinaya and compliant standard of the community waa la siinaya qayb xarun meel u gaara oo iyagaas mataqaanaa kambaniyadaas ama education institutionka ama research organizationkaasi ay xogtooda iyo daatadooda ku kaydsadaan sidoo kale waxaan gelaynaa waxaa loo yaqaano service model sida SaaS iyo PaaS iyo AIS sidoo kale waxa ugu horeeya waxaa loo yaqaano infrastructure as a service kan waxa weeye waxa lagu waa provide virtual computer baa lagu siinayaa resource over the internet resource baa ku jira waa userska marka waxa loo ogol yahay mataqaana uu control karaa operating systemkaaga control karaa storagekaaga networkaaga maaragtay xogta lagu siinayo inaad computerka software ku shuban karto inaad software ka saari karto waxaasoo dhan mataqaanaa wixii adiga software u baahan tahay inaad ku install garaysan karto unbaa lagu siinaya sidoo kale waxaa lagu siinayaa waxaa loo yaqaanaa virtual machine baa lagu siinaya oo storage leh network leh kaasoo marka according to the requirement exampleska waxaa ka mid ah AWS oo Amazon oo iyadu tahay sidoo kale EC2 waa Amazon Azure taasi waa Microsoft virtual machines baa jira Google computer engine baa jira marka waa maxay machine baa lagu siinayaa ku shaqeynaya internetka oo virtual ah oo aduu operating systemkaaga iyo datadaada iyo waxaaga iyo backupkaaga waxaaga ka qaadanayso oo xogtaada adigu aad ku kaydsanayso waxaa loo yaqaano SaaS-na SaaS isaguna waa platform loogu talagalay dadka developerska dadka programmada sameeya ama developerska ah baa loogu talagalay inay mataqaanaa ay programmo ku samaystaan oo users can focus application inay ku sameeyaan development without worry about iyagu marka aan ka walaacin infrastructure iyo maaragtay qalabkii iyo maaragtay waa cuslaaday computerkii waa cuslaaday iyo waxa iyagu aan ka fikirayn meel ay ku diyaarsadaan mataqaanaa applicationadii iyo website-yada sameyn lahaayeen programmada ay sameyn lahaayeen applicationada ay sameyn lahaayeen halkaas ku dhex sameynayaan applicationkaas ay sameeyaan ma aha wax kale oo marka ay awood u leeyihiin male sidoo kale infrastructure include servers storage network xogta data halka ku kaydsanaysa laakiin systemka iyo infrastructure waxba kama bedeli xaba developers can leverage pre-configured environment development framework kama bedeli sida Google App Engine ma kamid ah Amazon kaasa kamid ah xogtaada markaan lagu fasaxay waa adiga waxa weeye lagu fasaxay kaliya shaqada ku qabanaysa sidoo kale markaa waxaa jira waxa la yiraahdo SaaS baa jira isaguna waa software develop software application loogu talagalay internetka waxaa bixinaysa waxa la yiraahdo subscription waa maxay lacag baa la baxaysaa waxa weeye bill baa kireysanaysaa 2 bilood baa kireysanaysaa subscription kaas la baxaysaa users can access use ayagoo marka application isticmaalaya applicationada marka waxa kamid ah Microsoft Office 365 iyo Google Workspace ina mataqaanaa qaybtaas baa kireysanaysaa lacag baa la baxaysaa bill baa kireysanaysaa sanad baa kireysanaysaa hadda inta kireysato hadhow waxa weeye qaybta mashiinka monitoringa baa hadhow xogtaada soo saaraya applicational maxamed oo qaybtaas aan ka dhex galay waa qaybtan on basifna ku shaqeynayso SaaS on basif markasta waxaynu maqlaynaa waa SaaS company SaaS company waxa laga wadaa inagu hadda oo connectiso subscription ma bixino yes the subscription marka lagu sheegayo waa noqon karaa bil buu noqon karaa 3 bilood buu noqon karaa sanad buu noqon karaa subscription baa lagu siinaya markaas application-ka aad waxba kama bedeli kartaa oo connect inagu shaqadeena oo bay ku qabsanaa ma aha ana ma develop garan karno waxba kama bedeli karno waxba kuma soo dari karno isticmaalkiisa iyo inaan mataqaanaa toolskiisa isticmaalo ma aha waxaanu ka bedeli karnaa ma jiro Microsoft Office waxa la inoo diyaariyay marka kuwan kale oo dhan tan baa ugu yiisan baa inaga company-ga ku shaqeyn waxa la diyaariyay waa system diyaarsan
lacag baa unba laga qaadaya kira laga qaadaya bas systemka waa ku diyaarsan yahay kira unba laga qaadaya waxa isticmaalaysaa system laga shaqeeyay oo la dhamaystiray toolskiisii baa isticmaalaysaa waxa weeye Microsoft Office kaas oo kale application-kii baa isticmaalaysaa waa soo furanaysaa Word-kii Excel-kii PowerPoint-kii waxaasaa daatadaada xogtaada waa ku kaydsanaysaa waa ku qoranaysaa wabillahi tawfiiq saasoo kugu shaqeynaya haddii subscription-ku kaa dhacona waxaa lagu oranayaa cusboonaysiiso oo subscription-ku waa kaa dhacay marka qolyaha waxyaalaha subscription-ka isticmaalaa waxay isticmaalaan SaaS ama software as a service sidoo kale cloud computing-ku waxa weeye benefit-ka ama faa'iidada uu leeyahay waa maxay inuu kuu save gareeyo cost saving inuu costigii qiimihii inuu kuu save gareeyo oo mataqaanaa sida andaan qalab soo gadan lahayd inaad router soo gadato switch soo gadato qalabkii aad soo gadan lahayd oo dhan waxaa kaa hor istaagaya inaad mataqaanaa cloud computer-ka iibsato halkaa waxaaga mataqaanaa daatadaada iyo xogtaada aad waxaaga ku kaydsato sidoo kale scalability-na waa maxay inaad si fudud xogtaada resource-gaagii aad mataqaanaa u hesho una gaadho flexibility waa maxay access resource applicationskii inaad meel walba kasoo geli karto internetka anywhere with a internet connection mar walba oo aad nadwa kusoo xiranto inaad xogtaadii halkaa ka heli karto sidoo kale reliability-guna waa maxay waxaana in isku haleyntooda iyo in la isku haleeyo in xogteeda mataqaanaa uptime yahay date daataduna ay tahay redundancy daatada inaa mar walba in mataqaanaa daatadaada xogtaada rasmiga mar walba heli kartaa si markaa aan idin sheegayay daatada mar walba backup baa laga sameeyaa different location baa la geeyaa haddii meelaha qaybtood haddii disaster ama data center ay gubato xogtii waxaa laga helayaa sarfarada kale laga helayaa dib baa loo hagaajinayaa qaybtii xumaatay baa laga saarayaa daatadii hadhow dib loogu shubayaa bartiiba shaqada ka bilaabaya sidoo kale collaboration waa siduu inoogu dooray kambaniguna kannaba uu inoo dooray maasha allah marka sidoo kale in xogtii collaboration daatadii markaas ay mataqaanaa u wada shaqeyso different teams ama sharing xogtii mataqaanaa loo kala daatadii la sheergareeyey inay ka helaan teams kala duwan oo meelo kala different kala jooga inay daatadii helaan sidoo kale common cloud computer-ka wuxuu isticmaalaa data storage in daatadii la kaydiyo daatadii in laga sameeyo waxa la yiraahdo backup copy laga sameeyo oo la backup gareeyo large amount of data secure in meel gaar ah la dhigo oo lagu kaydiyo haddii daatadaas meesha ku jirta wax ka sii noqdaan halkaas laga soo akhrinaya sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaano software development and testing in mataqaanaa really create in la abuuro applications scalable environments softwares markaa si dhaqso leh xogtaas mataqaanaa applicationadaas iyo waxaas u test gareynaya una jeeg gareynaya sidoo kale in la sameeyo web ama mobile applications host web ama mobile application in the cloud for the global accessibility يعني in la sameeyo web يعني browser la sameeyo ama application oo caadi la sameeyo mobile laga soo galayo in mataqaanaa meel walba laga soo access gareyn karo xogtana laga soo geli karo sidoo kale in la sameeyo big data analysis process analyze amount of the data using cloud services baa la saarayaa halkaasaa big data analysis waxaa la saarayaa cloud services halkaas xogtaadii ka isticmaalaysaa haddii ay dhacdo waxa loo yaqaano disaster ama musiibooyin ama dabayl ama duufaano ama roobab ama dab waxaas ay dhacaana waxa weeye recovery waxa maintenance data backup datadii backup ka ahayd baa dib loo soo celinaya kadibna cloud wixii baa lagu shubayaa business-kii intaqaanaa kambaniyada business-kooda waxoodana dib bay u shaqaynayaan xogtiina waxaa ku ahaanaysaa stable sidoo kale qaali fiidowga ma joogsada heli wuu socdaa walaal ha marka insha Allah waxa weeye hadalkana waa tanaa waa qaabku u samaysan yahay wuxuu samaysan yahay client infrastructure qofku wuxuu samaysan yahay laba qaab waa front end iyo back end front end waa maxay waa meesha internetka ka galaysa adigu laakiin back end-ga ma arki kadib storage iyo qalabka iyo security-giisa iyo mataqaanaa management-gii iyo waxaas waxa weeye adigu application-yada kore iyo services-kaas isticmaalaysaa laakiin waxaa kale company-ga security-giisa management-giisa inuu update gareeyo software-da ka bedelo upgrade ku sameeyo tools ku soo daro waxa awood u leh company-ga wuxuu leeyahay awood inuu upgrade ku sameeyo inuu arrange gareeyo inuu habeeyo inuu mataqaanaa various elements kala duwan
inuu mataqaanaa wax ku daro reliability-ga, scalability-ga, security-ga in la isku hadlayo company-gan mataqaanaa reliability-giisa iyo marka la soo galo in xogta laga helo xogtaasi ay noqoto xog la soo gaari karo si fudud lagu heli karo scalability-gana waa maxay performance-giisu inuu noqdo high sidoo kale security-giisuna inuu noqdo mataqaanaa laftigiisu inuu noqdo high noqdo oo mataqaanaa xogtaasi la ilaaliyo sidoo kale kana waxa weeye waa barnaamijkii hadeer iska diiwaangelisay maxaa la yihahdaa Ombasif oo hadda maanta dhow la soo dhigayay kambanigani waa أنا aad baan ugu baahanahay in si fiican loo fahmo kan waxa runtii weeye waxaan waxaa iska diiwaangeliya kambaniyada bixiya waxaa loo yaqaano mataqaanaa domainka oo mataqaanaa sida Facebook oo kale kambaniyada mataqaanaa sida Ombasif oo kale domainka meesha laga gato kambaniyada hadeer GoDaddy iyo mataqaanaa kambaniga DreamHost iyo Bluehost iyo waa kambaniyada bixiya providerska bixiya domainada ama website-ka qofku markuu rabo inuu website samaysto iyaga laga gataa iyaga marka wax maxay host ku siinaya meeshii aad saarsan lahayd mataqaanaa website-kaaga meesha saarsan lahayd laga kireynayo iyaga ku siinaya sidoo kale marka isagu waxa iska diiwaan geliya company walba oo raba inuu noqdo GoDaddy oo kale inuu domainada gado bixiyo baa isku tegaya isaga marka waxa la yiraahdaa waa standard loogu talagalay in lagu ilaaliyo standardka internetka in lagu ilaaliyo marka wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaano standard for internet corporation baa la yiraahdaa wuxuu sameeyaa assign magac buu u sameeyaa sidoo kalena wuxuu siiyaa waxa loo yaqaano numbers magac buu ku siinayaa numberna waa ku siinayaa sidoo kale waxa weeye oo magaciisa waxa laga ay kantan oo sida loo soo gaabiyay ay kantan ay soo gaabsantay sidaas u gaabsantay miya intaas u gaabsantahay standard for internet corporation assigning names and numbers baa la siinaya waxa loo assign garanayaa magac baa la siinayaa waxa la siinayaa number baa la siinayaa sidoo kale waxa la yiraahdaa waa organization oo aan waxa weeye non profit ah oo maartay aan faa'iido doon ahayn sidoo kale waxa la wuxuu sameynayaa company-gaas wuxuu sameeyaa wax loo yaqaano coordinating oo kormeero inuu maamulo the global domain name-ka ama DNS-ka la bixinayo inuu maamulo oo coordination ku sameeyo ilaaliyo si mataqaanaa company-ga kaliya looga dambeeya GoDaddy isagoo iska diiwaangeliyay Bluehost isagoo iska diiwaangeliyay DreamHost isagoo iska diiwaangeliyay oo domain isagoo iska diiwaangeliyay company-ga marka company-gaas maamulaya si loo ilaaliyo badqabka mataqaanaa ama internetka badqabkiisa iyo qaabka security-giisa badqabkiisa stability-giisa mataqaanaa in la ilaaliyo marka maxay wuxuu bixinayaa wax loo yaqaano global domain name-ka sidoo kale wuxuu bixinayaa wax loo yaqaano IP internet protocol ama IP address buu bixinayaa IP address waa maxay computerku wuxuu fahmaa waxa loo yaqaano IP address waa numbers shinku wuxuu fahmaa ama network-ga computerku waxay fahmaa